diyaar garowga mid annaga kaliya maaha waa mid Soomaalida oo dhan ay iskaga dul qaadayso cadawga ummadda ragaadiyay oo al-shabaab deegaanada ku socotaan hadda annaga waxaa noo target garaysan deegaano qaas ah laakiin goob kasta oo ay ka joogaan dalka Soomaaliya waa ninka la yiraahdo inaan uga daba tagno waa fardul ayn waaye waa aayad quraana meel kasta oo ay joogaan in looga daba tago laakiin waxaan rabnaa xooga ugu badan maadaama madaxweynaheenu oo ku dhawaaqay in deegaanada dadka degan ay ka saaraan qolo walba deegaankooda waxaan rabnaa inaan noqono beesha ka soo muuqato deegaanadeeda marka insha Allah koonfurta iyo waqooyiga labadaba inaan ku dhaqaaqno ayaan go'aansanay si guud ayaana dhaqanka iyo culimo diinka ayaguna ay ugu raaceen mowqifka madaxweynaha beeshan karanle marka insha Allah meesha ugu muhiimsan waa deegaanada Ceelbuur Galhareeri Jacar Wabxo Awsweyne iyo dhulka ku teedsan oo dhan oo qabiilkan uu dego 39 ama karanle hawiye kama reebano koonfurtana waa loogu talagalay ragii ayagana ka shaqay lahaa sidii afar buulo mursade doon dheere iyo agagaarka Dayniile ayadana in laga saaro cadawga qabiilkan iyo cadawgu si caday u kala dhamaanayaan ma isdul saaraanayaan biidnillah baaqa waan wadna bariyahan oo idil maxay ahayd waana sii wadaynaa qof kasta oo Soomaaliya waxaan leenahay oo diin ku dhalatay qofan diin ku dhalan hada diin wax ku falme wax la wadana waa diin ayagu diin ay sheegan laakiin kooda waa been midkii dhabtahay waa kan la wado qof kasto ajir rabo oo maadaama adduunyada iyo aakhirada ay gashay in cadawgaas hal qof baa noqotay inaad wax ka barakayso waxaba gashay noloshiya gashay because aakhiradaadina way ku jirtaa inaad cadawga al-shabaab wax ka dishaa aakhiradiina gashay adduunyadina waa gashayo hadaadan yeelin aday ku dilayaan marka saas aawadeed waa cibaadana ninka la yiraahdo yaan laga badsan waaye waxa bini'aadanka ninka la yiraahdo labada daarood inay ka soo muuqdaan waaye waxa Ilaahay uu u keenay ifka ma inay ninka la yiraahdo ay waab iskaga jiraan ama maxay ahayd beeran falay iyo ma jirto qayr waaye ajir waaye Ilaahay baa noo keenay Ilaahay noo keenay inaan ku cibaadaysano noogu keenay wixii Ilaahay noogu keenaaba waxay tahay inaan ku cibaadaysano marka cibaado qofka hore ma laha anagu dad islaam ahaanahay Soomaaliyo idil inta badan qaasatan qabiilkan karan leh si gooniya waa dadka ninka la yiraahdo diinta maxayada loogu sheego anaguna aan aaminsanahay marka anagoo sharciga dawladda raacayno oo baaqi madaxweynaheena qaadanayno Ilaahay ajir ha siiyo adduunyo aakhiro Ilaahay baa afkiisa kelmad wanaagsan nooga soo saaray anagoo taas raacayno ayaa culimadii qabaa'ilkan iyo nabadoonadii ayay ku baaqeen marka baaqaasaan si dhameystiran u qaadanay dhalinyarada qabiilkan ka soo jeedo nin saqiir ah iyo qof xanuunsan oo sariir saaran ama cuuriyana waa gooni laakiin karanle hawiye qabiilka la yiraahdo qof caafimaad qabto oo jiida dagaalka ka baaqaysaa ma jirto afartan ku maranay qofka ka hero cudurdaar la'aana ninka la yiraahdo waa habaarna kaas waa habaaranaya qof yowma waa qof maskaxda looga jiro karanle waa baxay waxa uu kala dhaqaaqay goobaha ku haboon qaasatan deegaanadiisa u dhaqaaqay waana ka sifeynaa al-shabaab biidnillah adduunyada waxaan rabnaa inaan ku faano aakhirana waxaan rabnaa in Ilaahay nagu siiyo shafeeco marka ayagayna nooga jirtaa naga taga waa diideen waqtigay haysteen waxay sugeen maanta marka waxa ku dhacay buunkiya ku yeeray xitaa afiska anigu waxaan qabaa wali fursaday haystaan ayaa madaxdeenu tiraa madaxda waxaan ka codsaa fursadaas in laga joojiyo fursad ma haysatiin loogu bedelo mudana madaxweyne fursadii aad siisay waxaan ka codsanaa inaad kala naqato fursad ma lihidin aad tiraa bariga ka dambo because marka qofka naftu ay gaarto jacorka tawbadeeda lama aqbalo intay xoog laheeday
hadday diidda inay tooba keento marka nafta jocorka timaado waa tooba keena ma jirto waxaan marka codsanayaa oo aan ka codsanayaa taliyaha xoogga ka codsanaa madaxweynaha ka codsanaa wasiirka amniga dhammaan madaxda guud aan ka codsanaa madaxdeena barakeysana in fursad ma leediin la yiraaho fursad habeelaane waa gabagabo halkaasna aan ku dhamaystirnaba oo barnaamijkaas halkaas oo nooga dhamaystirmo waxa kale oo soo jeedinaa beelaha ka soo dhalaalay oo gacanta nagala hormaray jazaakallahu khayran leeyahay ilaahay baa idin makanshay sharaf adduunyo iyo mid aakhiraad hesheen qaasatan beesha xawaadla waxaan leeyahay waad guulaysateen guulaysta annaguna garbihiinaad naga dayaysaan ilaahay baa ninka la yiraahdo inaad qayrka nooga hormartaan xaqiisa ay ka ahaatay marka annaguna waxaan nahay walaalihiin garbihiina waa ka soo muuqanaynaa waana dhaqaaqnay waana isdaba joog ninka la yiraahdo beelaha kalena insha Allah qolo walba ilaahay baa ninka la yiraahdo sida roobka u da'ayo oo kala hormaraa deegaamada ayaa ninka la yiraahdo cibaadadana loogu kala hormaraa marka xawaadla cibaadadiyaad nooga hormarteen annaguna ninka la yiraahdo maanta ay noo ahaatay inaan qaybteena ka qaadano qabaa'ilada kale oo dhanna waxaan leeyahay war qabiilkii ka herow intaad ku sheekeeyay intaad joogay masaajidkaad ku dukee gabartaada isaga guursa haddaad ninka la yiraahdo ka herto adawgaas dulaysan ee Soomaaliya ku soo duulay wuxuu afar qof oo muqallasiinahay wataan ma ahan Soomaali yaan lagu lugoyn Soomaali ma ahan waa ninka la yiraahdo ajaanib aruuri soo dambiye dalkoodii ka soo gashay waxa ninka la yiraahdo doomuhu ay keeneen oo mahal geedaha noogu hoos jiro hadda waxaan maqlayay waqti ugu dambeeyay markii dhaqaalihii iyo wixii ka go'een oo maxkamadii ka istaageen waxay ku dhaqaaqeen inay xoolihii qashaan xoolihii dadku way kala carareen dameeriyi looga taga buulooyinka iyo mukulaaladii cunug hayaan jaas tabartoodu waa intaas afartan wiigo laga jira maxkamadaha marka insha Allah waan dhameystireenaa beesha caalamka iyo dawladda madaxda ugu sareysa maxaa ugu baaqi lahayd waa jaanis ilaahay nasiiyay madaxweynaha sabab u ahaa dhammaan ninka la yiraahdo ciidamada dawladda federaalka meel kasta ay joogan way ku dhaqaaqeen way dhiiri galiyeen shacabka dhalinyaraduna saacad waliba Soomaaliyeed way u taagan yihiin cod mala dadku oo codkoodii soo ma gaarayo cadawgiya qaarkood wuxuu u fadhaa iridda laakiin markii la tago deegaamada markii la tago durbaba dhalinyara ka soo firxanaydo waxa kale oo soo haray مثل هذا مركي دوتوها مغلي odayaal qabiilka 3 iyo 9 kuwa dhaha war waxa soo ma jiraan shabaab qabiil shabaab oo ma jiro qof ay afduubeen ay boqorku uga dhagan yihiin waayo ay qasbayaan midda aad iga weydiisay caalamka ninka la yiraahdo wuu dadaalay war halkiina ka sii wada qoloba maray qabanayda hadda Soomaaliya hayda inay halkaan ku afjaranta idinku tiina ku jirtaa teenana ku jirtaa waadna garab siiseen intina garab siiday waa ku mahadsantahay adduunyadu inta kalena waxaan leeyahay war nala dhameystira ninka la yiraahdo ciyaaya loo ciidan shaawad dadaalo wayna waad noo jeedinay